sheekadan waxay xuqsiisaa jaceylka naga dhaxeeyo aniga iyo Tara balse qof kale ayaa jiro qofkaasna hal mowqif oo kaliya ayuu leeyahay mowqifkiisana waa burburka aniga iyo Tara jawiga maanta aad iyo aad u fiican yahay sababtoo saaxib markaad adiga faraxsan tahay waxaad moodaa magtaqaan dadkoo dhan ay kula faraxsan yihiin jawiga wax walba aad iyo aad u la qabsanay teeda kale haddaa isdhaado dunida wax walba waa dhammaadeen bisna haddana koow iyo bilow ay noqonaysaa waa la yaabka oo dunida mugsoon tahay taasna marka si walba waa cabir
تارا ولا حري magacaaga noo sheeg Tara Bronze. adoogaaga magaciisa Elvis Bronze. habartaada magaceeda Shania Swati Bronze. okay yaa lagugu yeeraa u baahan tahay hadeer Ragu. run iyo been kalsooni iyo kalsooni daro habeenkaas ayuu aniga Tara dhexdeena ka dhex dhashay wararka warbixinooyinka barnaamijyada waxyaabaha ka dhacaya dunida dacaladeeda intaba waxa diyaar idin la oo aad ka heli kartaan bogga internetka ee www.safafilms.com aniga Bansaari waan dilay balse Tara waxay ii haystaa inaan ahay qof burcada waa arrin fiican aad iyo aad baan ugu farxaniga Bansaali in la dilo waan u baahnaa maxaa yeelay wadankeena iyo draagiis wax la mid ah in muqaadaraad iyo soo garan jiray ay story waxaan rabaa Bansaali marka dilay Ragu iyo ciidankiisa meesha ay ku maqnaan isoo ogow okay waayaha tale dhinac waxay iga taagneed Tara oo ah jecelkayga dhabta dhinaca kalena waxay iga taagneed Leon oo ah qof shidan waan caadi ahayn Take it off.
मेरा यार मिला दे मुझको 2 लाख दुआएं तुझको हाँ मेरा यार मिला दे मुझको 2 लाख दुआएं तुझको दीदार बिना दिल भर के कुछ सूझ रहा ना मुझको उस दिल की बात बता देगा मेरी आंखों का मंजर इश्क समुंदर दिल में अंदर इश्क समुंदर दिल में इश्क समुंदर दिल में अंदर इश्क समुंदर दिल में तुझसे ही प्यार है करना तेरा इंतजार है करना तुझसे ही प्यार है करना तेरा इंतजार है करना मेरे लिए तो जीना तेरे इश्क में है मरना कितना और कब तक भागेगा दौलत के लिए सिकंदर इश्क समुंदर दिल में अंदर इश्क समुंदर दिल में इश्क समुंदर दिल में अंदर इश्क समुंदर दिल में aniga sida ma jecleen daara inaan wax ka qariyo markaas maxaa rabay runtana u sheego haye weli waa soo jeedaaye daara ah inaan wax kuu sheega ayaan rabaa ah ii sheeg aniga xalay kilaabka gabar ayaan kula kulmay kadibna qalad ayaa naga dhex dhacay ah run ahaanti aniga ma rabin aamus iska jir mar baa haddii aad ila hadashid aniga maxay tahay aamusnaantan dagaal miyaa jira mar kale arooskiina hal bilow keliya ayaa ka dhiman dagaalka joojiya wixii dhacay iska ilooba taara fikirka badan iska dhaaf adigana waan ogaa qaladoo dhan ninkan inuu leeyahay hooyo waxaan rabaa airline xoogaa inaan ku soo nasto waxaan rabaa airline xoogaa inaan ku soo nasto maxay dhahde hadda sidee ku baxaysaa shaqo badan ayaa idiin taalo maxaan u joogaa wax diyaara uma jiraane gabadhaydi maxaad ku hadlaysaa kaararka arooskaagii waa la soo sameeyey raguu wixii dhan wuu soo diyaariyey maxay tahay safarkan deg deg ah oo hadda ku soo galay ii sheeg hooy haddii aad safarka joojin kartaa raac ka jooji okay gabadheedi taaraa aniga ma ogi wixii hore idiin dhex mara idinka laakiin hadda waxaan u jeedaa gabadheedii inaa adiga hadda qaldami rabto wiilkan raguu ee wiil fiican waaye annagana waxba nagama oosan halayni gabadheedii famil ayuu naga dhigtay ma jiro wiil jecel sodohdiis inuu la dego gabadheedii laakiin aniga hooyadiisoo kale ayuu iga dhigtay gabadheedii waxna kaama halaynaayo adiga inaa isdejiso isku day gabadheedii arrinkaaneetane hoos u dhigto wiilkaanna wuu ku jecel yahay waana wiil fiican waa nin fiican wuu shaqaysanayaa wax walbuu qabsanayaa annagii nala joogaa waa ku baryaa gabadheedii isdeji
hooyo aniga inaan wax maqlo maba rababa halo maya aniga ma imaan karo anigii taara ayaa isku dhacsan aniga wax ii haystaa maxaa yeelay aniga ayaa waxay ii haystaa gaangistirweyn inaan ahay arrintaa ana xaliyaa marka aniga mar kale ayaan kulmaynaa okay एक दौर वो था मुझसे भी ज्यादा उनको फिक्र थी मेरी कहते थे मुझसे रुखसत न होंगे मिलके दोबारा कभी अब तो गैरों से मेरा हाल पूछा जाता है यही दर्द दिल मेरे दिल को रुलाता है वफा ने बेवफाई 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 की है वफा ने बेवफाई 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 की है वफा ने बेवफाई 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 की है वफा ने बेवफाई When I look into your eyes, baby, I'm in paradise. We could take it to the skies. We can make it you and I. When I look into your eyes, baby, I'm in paradise. We can take it to the skies. We can make it you and I. haydar haye qof inaan la kulmo ma rabo okay mudane xaaladdu way kacsan tahay okay मेरी आशिकी ये रब के हवाले रूठे यार को बस कोई मना ले यादों की सूली दिल में गड़ जाती है वीरानियां जब हद से बढ़ जाती है एक दौर वो था मुझसे भी ज्यादा उनको फिक्र थी मेरी कहते थे मुझसे रुखसत न होंगे मिलके दोबारा कभी अब तो गैरों से मेरा हाल पूछा जाता है यही दर्द दिल मेरे दिल को रुलाता है वफा ने बेवफाई 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 की है वफा ने बेवफाई 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 की है वफा ने बेवफाई 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 की है वफा ने बेवफाई haa mudane taara waxay u baxday taabliin hotel ay degan tahay iyo wax telefoon number kama haya aniga hooyana kama hayso marka waxaan ku fikir adiga inaad wax khabaar ka heli karo oo taara ku saabsan maya mudane aniga wax information ah kama hayo wiilkayga ragow adiga wax iima sheegoosid taaraana wax mii sheegooso say wax u jiraan wiilkaygii sheekadan maxay tahay
siday dublin u aaday xasuusteeda waxaan ka ahayn aniga ma haysanin halo waan ogaa aniga taara wax dambi ah in aysan ku lahayn falkaas balse waxaan rabay inaan ogaado cidda ka dambaysay falka lagu haysto taara tara waa maxabiis mugsuuntay mana la kulmi kartid haddii ku madax adeegtid oo isku daytid inaad taaraa la kulantid kiiska waa u sii dalaca xabsiga baa kusii qurmuunaysa iyada marka adiga ma la kulmi kartid yes ma garat iiraa la noqda aniga waan soo daahay magacaygan waa eli okay abukaata taara ayaan ahay aniga eli kiiska taara maadaama gacantood ku dhigtay ood ku maasan tahay adaa mudan eli waxaan u baahnaa aniga taara inaan la kulmo dadkaan way diidan yihiin inaan la kulmo marka wax ii samee ku baryaa meeshan aad ayay u adag tahay dadka xirana lalama kulmo haddaad kusii madax adeegtidna kiiska ayaa lagu sii saa'idinayaa marka si tartiib tartiiba ayaad ula kulmaysaa adiga taaraasoo lama kulmi karo aniga hadda yes boss waa mahadsantahay because taara aniga waan ku salaamay magacayga waa eli waxaana abuukaataaga hooshana ragu waa ku jiraa raguma halkan joogo haa aniga waxaan rabaa su'aal walba oon ku weydiiyey si saxa inaad iiga jawaabtid adiga dublin sideed ku timid adiga middaas ayaan ku weydiinayaa ii sheeg aniga ii sheeg su'aal walba waxaan rabaa si saxa inaad iiga jawaabtid adiga aniga waxaa jiro wiil aan facebooka isku baranay adiid ayaa la dhahaa halkan howl ayaan ka wada qaban lahaa wax adiid la yidhaahdo meeshaan maba joogaanba okay sheekada ii wad xaggee ku dambaysay wuxuu igu yidhi asaga addareeskan intaad qaadato ayayday u tag markaad ayayday u tagtidna waxaad iiga soo qaadaa buugaag iyo cd-yaal anigana sidaas ayaan ayay ku raadiyey ayay markaan u tagay buugaagtii cd-yaashii horey iigu soo dhiibtay okay magaceeda ma taqaana adiga maya wejigeeda ma tilmaami kartaa aniga wejigeeda waan tilmaami karaa way indha burburneed way dheereed codkeedana aad ayuu u weynaa asaga wuxuu iga ballan qaaday eelaboorka inuu igu soo dhawaynayo aad ayuu iiga soo daahay wax badan ayaan aniga sugaayay kadib taleefon ayuu ii soo diray halo adiid haa taara waa ku salaamay walaalkayga weyn ayaa shil galay marka isbitaal ayaan ku jiraa waan ka xumahay adiid mideeda kale taksi soo qaado ama taksiilaha igu dhiib kadib aniga ayaa fahansiinayo meesha aan joogo waayahay taksiga markaan soo raacnay 10 daqiiq kadib askar ayaa timid anigana waa la soo adiga maogtaa magaciisa adiid in la raro ninkaas aniga aqoon kaloo dheeriyo uma lihi bas facebook oo kaliya ayaan isku naqaanay muddo 8 bilood ah ayaan iska seenaanay asaga marka codkiisa siduu u ekaanaa codkiisa iska caadi ayuu ahaa okay aniga ayaa kuu dadaalayo wax walbana waan kuu dhammaynayaa waayahay bye waan ku salaama aniga laakiin maalintaas maalin fiican uma ahayn iyada si kastay ahaataba
akhbaar fiican ayaan ka helnay taaraa ninkii halkan keenay intaysa meeshaan imaanin ka hor ayuu wuxuu iska xiray facebookiisa ninkan sawirkiisa hadda anaga ayaa raadinayno teeda kale taleefonkii naagta kula hadashana waa la raadinayaa xataa wejigeeda way tilmaantay tilmaanta ayada ayna siisay naagtaas wejigeeda ayaa lama sawirayaa eelboorka markay joogtana taleefonka oo ka soo wacay taleefon caadi maahan waa internet call qof walba meeshuu joogo ayuu qofkuu doono ka soo wacan karaa aniga waxay ila tahay ninkaas oo keliya ayaa iyada badbaadin karo qof kale ma badbaadin karo sidaas ayay ila tahay aniga taara ninkan kalena waa bansaali kiisaskooduna waa kiisas darooga ah bansaari waxaa la dilay 18 July waxaana dilay qolo burcada waxayna u dileen arrimo ku saabsan daroogada gabadhanna waxay ku xiran tahay xilligan la joogo Ireland labadaas qofood hadda ka soo hadalnay arrintooda waxaa ka dambeeya nin la yiraahdo adid waa kuma xagee ayuu jooga xagee isku nool yahay waa inaan gacanta ku soo dhignaa arrimihiisa oo dhan aan baarnaa ugu horeyn ninkaas ciidanku ay soo diray aniga isla habeenkaas ayaa meesha ku baabiyey balse meeshaas waxaan ku waayey hadii wadada aan ku heli lahaa adid barmis adiga maahan ii sheeg ya aniga magacayga kaas waayay lakfeesta ka buuga weligay ma furanin aniga maskiigna waa ahay marka sawirkaygana kaas waayay marka waa ku tuuga abawaskari aniga wadiyeyn wadanka ma ka dhoofin ilmeey baa kugu dhaarana feesa ka buug iyo wasaka xaabki iyo makasay dhuuntay baa kugu dhaaranooya qof kale le magacay ku furtay masawirkeeya u malaynaan magacaydana iska gada makasay baa ku leenay waa ku tuuga adeer askari ganfuurkaagan waa ku xubsinaya aniga hadid gacantaan ku dhibi waayay balse waxaan ku marugsanaa daaraa maxkamadda waxay ku xukumi doonto taaraa in muddaba wixii kiiskeedii la daba taagnaa haddeer waa ku caddaatay maxkamadda sharafta leh waxay ku xukuntay taaraa 7 sano oo xerig ah iyo ganax dheeri ah
अश्कों में है यादें तेरी भीगी भीगी रातें मेरी गुम है कहीं राह मेरी मैं तेरे इश्क में गुमराह हुआ मैं तेरे इश्क में गुमराह हुआ मैं वो चांद जिसका तेरे बिन ना कोई आसमां मैं वो चांद जिसका तेरे बिन ना कोई आसमां मेरी दुआओं में है मन्नत तेरी तुझको पढ़ा है तू है आयत मेरी जन्नत तू ही है तू होना ना दूर अजमत है तुझसे तू ही है मेरा नूर दिल की सलाखें कैद रखे है जैसे परिंदा कोई हाँ कोई अश्कों में है यादें तेरी भीगी भीगी रातें मेरी गुम है कहीं राह मेरी मैं तेरे इश्क में गुमराह हुआ मैं तेरे इश्क में गुमराह हुआ मैं वो चांद जिसका तेरे बिन ना कोई आसमां मैं वो चांद जिसका तेरे बिन ना कोई आसमां ها هوي ما أنت ترى أيام كل ما أديك أنا كوي عشتي سي حتى فا gabadhaydii iiga waran habeenadan riixun ayaan arkaa waan ku baryaa wiilkaygii ogolow inaa meeshas imaado ما يا هوي waan ku baryaa wiilkaygii لو مبهنا أنا قاعد ترى كينا laakiin fiiri hadda ayaa videoga adiga iyo taaraa fiirsanaya wiilkaygii rago taaraa way soo noqonaysaa soo maahan ها هوي أنا قاعد أسلم هنا وبلا أنك قاضي وحباك بغن أنا قاعد كينا ترى هلو alaabti meeshay ها iga raali noqo aniga taaraa waan badbaadin waaye xataa xarigeeda inaan gato waa liiga diiday aniga dhibka meeshaan ka jiro waxay tahay waddankeena maahan haddaan waddankeena joogi leen dhib ma lahan adiga laga wada dadashay soo maha hadda maxaa samaynaysaa indian oo laabanaa weliba anigii taaraa taas macquul ma noqonayso waxaan rabaa taaraa xabsiga inaan ku soo daayo
صح هذا من إيجا meeshaan hindiya ma ahan waa ireland وأنا وجه waxaasna ma kuu suurtagalaya وأنا وجه لكن واحد وجه دتك عندي مدح ذجين أنا كاكسي مدح ذك ما أنا لقيه وتعرى إني حبسي وكسي جرتو وأنا كحياتك حبسي You can't shoot? God damn it, man. Where do you get these guys from? India? A godforsaken place. This is very Ireland, you know? The IRA has real stuff and you go bang, bang, bang. Where did these guys come from? They're a bunch of jokers, you know? That's all they are. I'm telling you. Here's one more Indian coming. Would you like to try shooting? Don't be afraid. They're not real. All are blanks. Just wear glasses and headphones, so the bullet sounds will not disturb you. And then, even if you cannot hit the target, still it's all game. So don't feel scared. It's all game. Indians can't shoot properly. They're the best and easiest target. Ask any of the neighboring countries. Hey, boy. This is a G41. Generation 4, practical and tactical, .45 caliber automatic pistol, manufactured by Glock in the US of A. Do you understand? No? Translation denied. بستول متقنع بين معها وبستول ترون مقعد متقنع وأمان لاي والإحقات أمان مالها أوتوماتيك أمر دعضو بلسي أنا وحنا استعمال متقنع ودن كينا عذو يبرعدا يتدقعون إنان كاكدعينو بلسي أدينك ميد أدواتان ميد فالساعة وحبا أن تريني ميلهانا تلجوكتان وحنا كون مقابتان بلسي أنا بستول دحون قادنا ودن كينا أما dadkeena inaan ku difaacno ma fahantay okay haddii aadan fahmi karin dhib ma lahan qof ku turjumo waad raadsan kartaa okay ii baashaar ragu ninkaas waa Rajveer waa ninkayga hore wuxuu halkan u fadhiyaa safaaradda hindiya Rajveer ragu waa kana okay waxaa laga baahan yahay garab inaad siisid wax walbana adiga dartaada u sameeyna ogow ragu waxaan doonayaa inaan kuu sheego taara markana kiiskan daroogadu ay ku cadaatay wax laga qaban karan mana waana la xukumay aniga hadeer wax aan u qaban karaa mana badbaadin karo maxaan ku sameyn karaa marka walaalow arintan waan la xukumo qoftaas wax ciyaarna ma wadankan sharcigiisu adag yahay way maxaan sameeyaa ma indian dib isaga laabtaa may taara kama tahay kara aniga wax walba ayuu qaadato taara waa inaan badbaadiyaa wax walba ayuu qaadataan ku dhahay jaceelka intaan oo keliya ayaan ku nacay aniga mar walba indhahayga waxaa ka muuqatay taara oo keliya إلي قرشة في عن أيان هلي حلقاس waxa ii muuqdo kaliya sidaan taara xabsiga ugu soo badbaadin lahaa ninkaas adiga aad ka hadlaysid waa nin khatar ah xabsiga sida looga baxsadana agtiisa waxba maba ka ahanba
aabihiisna wuxuu ka tirsanaa ciidanka garaaji 1954 isagoo rabay hindiya garab inuu siiyo ayaa cadowga dilay asaga saaxiib ninkaas arrintiisa diin kaaga sheekeeyay amba haddaan kaaga faalloodo ninka hooyadiisa gacantiisa ku dili waaya ninkaas nin naxaya miyaa ii sheeg weligaada ma maqashay hooyadiisooba gacantiisa 16 xabsi oo dunida ku kala yaalo ayuu hore uga soo fakaday asaga haddana adduun weynaha dhan ayuu soo nacay kadibna xabsiga iskiisa asaga ayaa isku keenay haddana wuxuu ku xiran yahay xabsiga weyn oo Dublin ku yaalo mudane magacayga waa Rago. raaj haddii lagu dhahaa xataa wax farqiga uma dhexeeyo teeda kaleeto afartan derbi oo annaga aan ku dhex jirno magac iyo wax lamida kama shaqaynayaan lambar oo keliya ka shaqeeya halkan magacaagu waa lambar waxaa kaloo ogaataa aniga ma jecli su'aalaha badan iyo hadalka maalayacniga oo lala yimaado marka waxaan kuu sheegayaa xataa saaxiibtinimo kama helo ujeeddadeeduna waxaa waaye lacag oo keliya warkayga ma fahamti waxaan lacag ahayn ma xiiseeyo marka ha ila imaanin su'aalo badan iyo hadal mudane ma laga yaaba arrintan inay macquul noqoto waxay ahaataba aday ku taalaa taas laakiin adiga waxaa lagaaga baahan yahay laba mid inaad ka fikirto laba waxyaalood midda koowaad inaad nolosha ka fikirto tan labaadna inaad ka fikirto xornimada waayo halkan hindiya ma aha annaga waxaan doonaynaa mukulaal shabaq ku jirta inaan shabaqa ka soo saarno albaabada xabsigaanna sidaas uma adka ma jiro albaab furo la'aan la sameeyo albaab walba waxaa loo sameeyaa furo waxaana loo baahan yahay inaad furahaas adiga hesho oo aad gesho falkii aad ku raadin lahayd furahaas aan u dhigayso furahaas inaad hesho waa muhiim midda koowaad waxaa lagaaga baahan yahay lesson travel inaad hesho waxaa kaloo lagaaga baahan yahay midda labaad inaad hesho maabka Dublin si aad luqluq ugu barato magaaladan inta meel oo aad kala degaysid iyo meelaha aad aadaysid dhammaan inaad kala barato waa muhiim waxaa kaloo muhiim ah meeshaas sidaad ku tegi lahayd inaad falkeeda gasho magaaladan wadooyinkeeda tirada badan waxaa lagaaga baahan yahay inaad mid mid u barataa oo aad xifdisaa booliska si fudud ayaa idinkeeda ku qaban karaan laakiin waxaa ku badbaadi kartaa inaad 20 daqiiqo gudahood hawshaada qabato waayo booliska 20 daqiiqo ayay ku howlgeli karaan adigana waxaa lagaaga baahan yahay ka hor inaad hawshaada dhamayso 2 daqiiqo oo keliya ها 20 دقيقة وكلية تدقلات دعو وحوا جد والبا ولا حرايا بوليس كوا حرايا واي 20 دقيقة كوردان قوانا والدين قارجينا يا هوشينا تشاو واي مدن gabadhaas magaceedu waa Taara joornaalada ayaa la idinku soo qori doonaa markii hawshiina la galo
waxaan u baahanahay 2 baasaboor 2,000 euro baad dhiibaysa waa helaysaa baasaboorka rabtid ha ka cabsani okay maalintaas waxay ahayd marka labaad oo aniga laysoo weeraro aniga daabin waxaan u mahday 2 mowqif oo keliya mowqifkayga koowaad waa inaan badbaadiyaa taara mowqifkayga labaad waa inaan helaa qadiid oo taara baxar geliyay isbitoore dhegeyso ninkan taaraa diyaaradda ayuu la saarnay waxaana fadhiyay kursiga ku dhegan intuusan gaarin laakiin Ireland magaalo kale ayuu ku degtay tikidkoodana waxaa laga jaray hal agency ayadoo waxay fadhiday kursiga 22B asagana waxay fadhiyay 22D ninkan wuxuu shaqeeyay ciidamada sirdoonka dhegeyso isbitoore ninkan rabal leeyahay waxaan rabaa warbixintiisa oo kaamil ah okay दुनिया हो जाए पराई ना देना मुझको रिहाई अब कबूल ना जुदाई बेलिया बेखुदी बेखुदी मेरे दिल पे ऐसी छाई तू ही तू मुझ में समाई बन गई मेरी खुदाई बेलिया दुनिया हो जाए पराई ना देना मुझको रिहाई अब कबूल ना जुदाई बेलिया inta ka horeysana gabadhaas adiga laba kulmi kartid जहाँ जहाँ तेरा चेहरा वहाँ वहाँ मेरी आँखें सोचती हूँ अक्सर मैं तो लम्हा लम्हा तेरी बातें बेखुदी बेखुदी मेरे दिल पे ऐसा छाया तू ही तू मुझ में समाया बन गया तू मेरा साया बेलिया दुनिया हो जाए पराई ना देना मुझको रिहाई अब कबूल ना जुदाई बेलिया
run ahaantii adiga jacaylka si aad ayuu ku indho tiray ilaa heer wuxuu ku gaarsiiyey aniga agteeda uu ku keeno cajaa'ib soo maaha jacaylkayga dartiis ayaan dad badan ku bartay aniga इस सीने से यूं लगाना बागी नहीं ये आशिक तेरा है दिल को ना आजमाना बेनजीर तुझसा कोई ना जहां में तोमतों से रहना तू अब जुदा बेखुदी बेखुदी waxaan kugu hambalyeynaa san gurida xiriirkeena weli ma xasuusataane waan xasuustaa isxidhaaf ayaan ku jeclaa aniga anigaba waan ku jeclahay aniga haddaadan warkayga yeelin maxaa iga soo doontay soo kuma dhihin aniga gabadhaas ha la kulmin ma xasuusnaatid middaan ku dhahay aniga ma ogtahay haddaa mar walba la kulanto gabadhaas boolisku way ku aqoonsanayaan way kugu baranayaan gabadha hadhowdina fursaddaada ma helaysid waxba ma qabsan kartid magaceeda waa taara mudane war adiga sidaan gabadhan kuma badbaadin kartid ma fahamtid gabadha magaceeda waa taara war taaraa ha la dhaho ama manduuri ha la dhaho waxaan ku sheegayaa sidaan inayna waxba kugu hagaagaynin gabadhaana ma badbaadin kartid adiga waxbaa isdaalin saaxiib annagaana waalin mudane waan ogahay aniga gabadhan inaad si zaa'id ah aad ugu fikirayso murugtaadii waxqabadkaaga ayaan dareensanahay adigana waxaad iska dhigaysaa qof yacni murug ama waxba aysan ka gudub maalin wanaagsan taliya warbixinta raafan ma hadle magaciisa runta waa diifdaas telefoonkiisana wuu xiran yahay sheeg gurya sheeg hadal yaa kuu dhigo daroogada yaa si ka dambeeyey ii sheeg ila hadalaya ii sheeg waxaas maxaad u samaysay ma tagadash hadalaya anaa kuu sheega nafisaa ka dambaysay qorshahaas mudane nafisa okay anigaa raadinaya nafisaan adiga laakiin soo waxna soo raac mudan mid maku weydiiya iweydii adiga waxaa u tahay qof fiican gaangistar maxaa kaa dhigay waxaa waaye aniga sidii lee xiray mar walba sidii lee xiray ayaan gaangistar iska noqday mar waxaa lee xiray 16 sano mar 5 sana lee xiray haddana waa ii jeedaa halkaanaan ku xiranahay hadda ka hor anigoo meel iska jooga ayaa hooyaday qof xuna iigu imaatay meesha anigana markaas waan dilay laakiin adiga waxaan ku weydiinayaa qof fiicanaaba tahay maxaa gaangistar kaa dhigay ifahamsii bal midaas ii sheeg okay qisidadan ku sheegay lacag ma baahnaani okay dhib ma leh waa ka heshiina arrinkaas laakiin ii sheeg sanadku markuu ahaa sagaashameydii hooyaday waxay la shaqayn jirtay qolada filimaanta samaysa anigana aad ayaan u jeclaa filimaanta aniga shaah ayaan gadi jiray xaafaddiina waxaa degnaa nin burcad ah oo booliska raadsanayso anigana shaah ayaan u gey jiray agtiisa aniga makaan tagayana ma lay baari jirin maalin waxaa dhacday hooyo ayaa xanuunsatay anigana waxaan u baahnaa 10,000 oo hooyo aan ku daawaysto waxaa yimid nin la yidhaahdo antoni wuxuu ii yidhi ravan haddii aad disho 10,000 anigaa ku siinayo kadibna antoni wuxuu ii baray habka wax loo shiisho
tony wuxuu ii sheegay haddii aan ninkaas aan dilo inaan ahay nin waddankiisa wax badan u qabtay maxaa yeele ninkaas dad badan iyuu laayay balse aniga qorsheyga waa bedelay hay yiriso waaba imaatee maxaa ii keentay maxaa ii wadaa hooyadee xanuunsan lacag 10 kun u baahanahay sii waa ku tuugaa dhib ma leh hooyada haddii sida gabdhahan oo kaleeto ay u qurux badan tahay xaggayga u soo dir markuu hooyadii aflagaatay waan xanaaqay kadibna waxaan sameeyey sigaan dilay waryaa maxaa samaynaysaa waryaa ninkaas markaan dili kadib aniga waa lee xiray xilligaasna 9 jir ayaan ahaa balse marka la soo dayay nolosheeda wax badan ayaan ka bedelay Chief coming, Chief. Prisoner 312 is bleeding and unconscious. Get the court orders and get her to the hospital immediately. waxaa la gaaray xilliga oo aan taara xabsiga kasoo badbaadin lahaa ciidanka dublin hadday gacanta noogu dhiganna way noo dhammaatay balse mar walba nasiibkeena ayaan fiirsanaynaa taasoo ah jaceylka naga dhexeeya aniyo taara taaraha hal mid ayaad ku badbaadin kartaa marka hore inaad ka soo saarto xabsiga oo aad keento isbitaalka maxaabiista xanuunsan la geeyo taara hadalkaysa fiican dhegeyso waxaan sameey ku dhaho oo keliya waa inaad samaysaa fiir meesha meesha ugu dambaysoo tegaysay waa inaa xasuusnaataa teeda kaleeto qorshahan markaad degaysay meesha aad ku degtay wax caddaynaha uga tegin dhammaan waa inaad gubtaa Security, the phone is not working. Please check it. The wires have been cut. Sir, we cannot get through the city hospital. The lines are dead. Hello. Officer Martin, Chief Joshua here. Is the prisoner there with you? Yes, Chief, we are here. The prisoner is secure, no problem. Just increase the security around her as soon as possible. We'll do it right away, sir. iska jir hadii sadaqaajisan asqaajina daba adin iska jir taarana keen iska jir asqaajina haye hadda waa ku digay keen telefoonka nakeen tara Oh God, it's a mess there. Quickly send the emergency fleet. Send Walter to Raku's apartment for any clues. Rest head to the hospital immediately. si aan magaaladan ugu baxsano waxaan haysanay 20 daqiiqo oo kaliya 20 daqiiqo hadday dhaaftana askarta Dublin gacanta ayaa nooga dhigaya Hi, my patient, Tara, is admitted here in the hospital. Tara Wadia? Yeah, exactly. That's in Dublin ugu baxsano 20 daqiiqo aad iyo aad ayay noogu yareed Tara? Security.
mar hadday ogaadaan inaad soo baxsateen isgoysyada iyo jidadka magaalada oo dhan kulli way xirayaan marka waa inaad ka taxadirtaan adinka taas ma fahamtay warkayga marka waa inaad ka taxadirtaan adinka taas ma fahamtay warkayga كجر هاي سودا بالنا qalad ha isku gelin haddaba isdhiib ترى بدن ريح inaad qalad gelin ayaa بدن ريح ترى joog ayaan kula وادين شيء qalad ha gelin كجر isbitaalka aad gabadha ka soo kaxaysay rabtid maabkiisa iyo akhbaaraadkiisa oo dhan dhammaan waa inaad xifdisanataa ma fahamtay warkayga They're going to the top floor. Come on. Shit. They got away. mar haddaad kala soo baxdo isbitaalka maxaabiista gabadhaas ciidanka ha u malayn inay kaa dabaharayaan way ku raadinayaan ilaa ay kaa helaan marka waa inaad isbasaraysaa adiga isbitaalka ilaa boostejada tareenka si aan u tagno waqtiga aad ayuu noogu yaraa meesha aan rabay inaan tagno ilaa meeshaas gaari ima diyaarseen tareen iyo soo raacnay tareenkiina booliska ayaa noogu arkeen No stations in either direction. All the main lines. Call the port authority. Tell them I want that train stopped. So, there's something here. jacaylka aniga taara naga dhexeeyo ayaan dhib walba ugu badbaadin saaxiibkayga sheekadu ii sheega ku saxsanaa wuxuu yidhi sheekadaada ka hor waa inaad ogaataa dadkaas qorshaha ay leeyihiin anigana waan ogaaday boosteejada tareenka inay igu sugayaan booliska aniga waxay igu sugayeen boosteejada tareenka balse xilligaas tareenka aniga mar hore ayaanba ka tegay fiiri oohin wax ma taraysee fiiri indheed fiiri muluk muluk siyos addiid yaa way ii sheegto inteeska yimid yaa dhali intee isku barateen ii sheeg yaa dhaqso addiidaan rabaan dhaqso waryaa ma sheegay sheeg waryaa aniga ma aqaani in adid la dhahay ayaa teleefon ii soo diray waxay dhahay arrinkaas ii qabo waanuu qabtoo keliya aniga ma aqaani raadkiisa iyo meel uu degan yahay yaa Yes, Walter. Sir, they're heading towards the port. Increase all the security checks and block all the entrances in and out of the city. si aan ugu baxno magaalada Dublin waxaanu hasnayn oo kaliya 9 daqiiqo booliskana si xun ayay noo raadinayeen xilligaas rago wadda qaldanayaad soo gashay taara waddada aan ku socono ma qaldano ee waa wadda saxan maxaa yeelay aniga marka hore waan ogaa guriga markaan kasoo tagno
booliskana ee guriga ee tagayaan anigana maabka ayaan u bedelay meel kale ayaan u sheegay intay meesha naga raadinayaan anagana meesha aan rabno si raaxa leh ayaan ku tegaynaa aniga intaasoo dhan waxaan sameeyey booliska in aan ku mashquuliyo si aan magaaladan ugu baxsano waxaan noo harsanay oo keliya 1 daqiiqo iyo dhowr ilbiriqsi haddii intaas aan ku bixi weynina booliska gacantiiyo nagu dhigayaan Suspect in a black car heading towards the bay. I want them brought in alive. Yes, sir. رجو هذا ما حسميني ناني They got away. Damn it. Mr. Rajveer, I am the Director of Military Intelligence of Ireland. I am perfectly aware of who you are, sir. I just hope that you are just as aware of who I am. And I hope that there's a really good reason why I'm here on a Sunday morning, unless it's just to exchange a cup of coffee over some pleasantries. How do you know Raghu Vendrasashish? I do not. You really don't know who he is? I just said so, sir. I do not. Do you know Tara Bronson Wadia? She escaped this morning with her boyfriend. I guess that's why they say, do not ever give a bad girl a good boyfriend. anaga magaalada dhinac kale ayaan ugu baxnay balse waxaan ogaa ninka la dhahay adeed oo taara baxarka geeliyay in meel kale oo naga raadinay la wadeena kama dambeys waxaan soo gaarnay meesha anaga aan rabnay weliba anagoo nabad qabna rago waqti xaadirkan adid wuxuu joogaa She escaped this morning with the help of the bird, Enrique Santino, and some legal support, and the support of the Indian embassy. False allegations and invalid accusations are heavier than abuse, Mr. Truman. Are you trying to tell me my duties? And I suggest that we move on and enjoy the rest of the Sunday, unless you have something more serious to talk to me about. Didn't your wife fight the case of Tara Bronson Wadia? My wife once contemplated representing Osama bin Laden and Saddam Hussein. She's a lawyer. That's what she does. Where is Douglas Broad? Who, sir? Douglas Broad. Am I supposed to keep tabs on almost everybody that I know? tara ninka adid ah waa la soo ogaaday wuxuu yahay ee hadalkayga si fiican u dhegayso
kadib ayaan meeshan kugu soo laabanaa hal saacadii aan ku soo laabo waayo waxaad iiga ballan qaadaa inaadan sugin oo aad meeshan ka tegaysid waa ku baryaa waan ku baryaa naidifaan isku day ninkaas ma cafin kara aniga marnaba teeda kale taara ani weligay kuma qiyaamin si xaddaaf ayaan kuu jeclaa aniga laakiin markaas shaqo ayaan ku jiray shaqo ah haa aniga ciidanka dambaarista ayaan la shaqeeyaa ani nin ciidan ayaan ahay hawsheed oo keliya ayaan gudanayay maxaad tiri haba xabsiga aniga markaan ka soo baxay gaashaan asraf qaan ayaa ii yaray kadibna shaqo ayuu i siiyey markaas kadibna asiga ayaan la shaqaynayay raggo maanta runta waxay tahay ayaan doonayaa inaan kuu sheego ugu horrayn howlihii aan horay kugu diri jiray middan way ka sii adag tahay ninkan bansaari la leeyahayna sharciga gacanta ayuu ku soo dhigaa misena wuu ka badbaadaa haddana sharciga mar labaad mar saddexaad mar afaraad gacanta ayuu ku soo dhigayaa misena sharciga wuu ku badbaadayaa markii maxkamadda la hor keeno ninkaas dhibaato fara badan ayuu waddankeena ku hayaa marka waa in laga qabtaa shacabka waa in laga qabtaa musuqmaasuq iyo qaladku ku socdo waa in laga hortagaa cadowtanimada uu magaaladan u qabo waa in laga qabtaa sharciga uu ku cayaarayo waa in laga qabtaa ganacsiga uu hayo amar oo keliya isii taliya maxaa sameeyaa ii sheeg kolay tirago adiga hawshaada sidaad u qaban lahayd ma aha midaan aniga kuu tilmaamayo mideeda kale waad la socotaa madaxdoo idil ciidankoo idil anaga inay garabkeena yihiin marka hawshaanna waxaan rabaa sida tahay inaad u qabatid mideeda kale 13 July bansaari iyo 4 kaloo burcda waxay ku shirayaan hotel Empire qolku lambarkiisu yahay 13,003 marka hawshaas adiga ayaan ku xisaabay fursad oo kaliya ay tahay fursadaasna waxay tahay hal saac oo kaliya hal saac kama dheerayn kartid haddaba xukuumaddeena mas-uuliyadoo dhan adiga ayay ku saartay ninkaas waddankeena cadowga ku ah waa inaad qabataa waxbaa ka baqin taliya ninkaas iyo 4 burcad la socota anigaa soo gabagabaynaya hal saac gudaheeda weli ma laga yaabo gacanteeda inay ka badbaadaan qidoor yaa nin burcad inaad tahay waan qiranayaa taas waan qirsanaya laakiin mar dambe dembi ma gelaya iska kii cafi booliska caadiga hawsha aysan qaban karin aniga ayaa qabto hawsheedna waxaa la socdo gaashaan qaan iyo wasiirka aniga bansaali markaan dilay kadib waxaan rabay walaalkiisa inaan dilo walaalkiisana waxaan ogaaday lagnaa inuu gabar uu kula balansan yahay gabadhaasna magaceeda waxaa la yidhaahdaa leon anigana markaas kadib kalaabkiyaan aaday waxaan arkay qoftaas inay ka ganacsato daraagiska iyo wax la mid ah markaas kadib aniga waxaan iska dhigay nin maalqaween ah si aan iyada u helo kadibna waan helay oo gacantay ii soo gashay markaas kadib aniga waxaan sameeyey telefoonkeeda ayaan qalab ku rakibay markaas kadibna hawsheeda okay qalabkii la tixraacay kadibna labadooda waa loo dhameeyey wax walba aniga waxaan u sameeyey dalkayga iyo dadkayga wax qaldanna ma samaynin balse anigoo howl ku jira ayaan adiga ku qiyaamay aniga hadda ma sheegi karo inaan badbaadayo in kale sidaas xitaa waxaan ku leeyahay waan ku jeclahay weliba saxdhaaf ayaan kuu jeclahay laakiin ninkan adid leeyahay ma laga yaabo inaan cafiyo ama inaan dhaafo maxaa yeele adigoo garaafo ku geystay si kasta ay u qaadato ninkaas waa inaan dilaa balse waxaan ka codsanaa saacad ka badan in aadan in sugin saacad waxay ka badan waxaan rabaa indii inaad u laabato oo ku barnaamijdaas iga badan qaad teeda haddii waxay ka dhiman tahay taa rabaa badan waan ku soo laabanayaa balse waa inaad sugtaa saacad oo keliya saacad ka badan ay sugin waan ku baryaa meeshaan isaga tag okay
maashaalla meeshuu ii sheegay oo aan ka heli karo adiid maxay tahay cadowtirinaad ii qabto maxaad ii dili rabtay aniga qofka araadinoosid ay maleynoosid miya aniga maxaa xabadii u dhufanaysaa qofka adiga araadinoosid wuxuu joogaa dabaqa qadiimiga ah keligiisa waay waxaana ku ballanay adiga markaa ku dilna kadib asaga inaa u tagna halkaas inaa kula kulano marka hadda waa ku baryaa aniga iskee dhaaf wararka warbixinooyinka barnaamijyada waxyaabaha ka dhacaya dunida dacaladeeda intaba waxaa diyaar idinla ah oo aad ka heli kartaan bogga internetka ee www.safifilms.com adiid brahmin heedar markaa meesha ku arkay layaab ayay ila noqotay maxaa yeelay heedar wuxuu ahaa qof aad u degan maxaad sidaan u samaysay maxaad sidaas u samaysa ragoo midaasma adiga ayaa weydiinayo adiga soo mogid aabbayga horteeda inaad ku dishay waxaan bala yaabanahay sababta aad ii weydiinaysa hadda waa kuu sheegayaa si fiican u dhegayso waad ka helaysaa aniga aabbay markaad dishay kadib abtigay ayaa meeshaan i keenay waxaana sugaya maalintii aan adiga kaa cadgowsan lahaa marka ugu horraysa howsheeda yaan ka bilaabo mataqaana iyo waxaan sameeyey antoni maxaa yeelay antoni wuxuu ahaa ninka kuu soo diray aabbahay inaad disho anigaba markaa waa waalanahay mog tahay maxaan kaloo sameeyey mataqaanaa antoni kala socda xataa waa dilay ma dhaafin qorshayga ugu horreya wuxuu ahaa mataqaanaa inaan adigu ku dilo laakiin dib ayaan u fikiray aniga waa fikiray waa wax iska easy ah haddiiba ay dhacdo inaan ku dilaayo waa inaan meel xun kaa dhaawacaa macnahayga qalbiga inaan kaa dilo meesha keliya aad ka jilcantahana waa taaraa kadib waxaan ku biiray mataqaanaa taaraa groupkeeda facebooka ayaan friend iskala noqday macnahayga saaxiib ayaan ka wadaa inter saas ay tahay haddana weli waxaan sugaya mataqaanaa maalinta
waqtiga aan tallaabta qaadi lahaa sida adigoo kale dagaalka adi iyo taaraa idinka dhexeeya ayaan ka faa'iidaystay si fursaddaas aan uga faa'iidaystana xaggeenkeena ma taqaanaa ireland macnaha deegaankayga kadib ayaan asxaabteeda waxaan ku amray in ay aniga imatalaan oo internet kolka ay kula xiriiraan diyaaradda markay soo kacdana ayada meeshaan ogeyn ninka tikid ku soo jaray inuu dhinaceeda fadhiyey saaxiibkeena wuxuu ahaa ninka keliya ee daraagiska soo gudbiyo waayo riboorka hindii lagama shakiya asiga sharci ayuu haystaa kadibna wuxuu sameeyey bugaagtii ayuu u kala bedelay kii daroogada ayuu keeda geliyey kan kalena meeshiisa ayuu ku celiyey intaas oo dhanna waxaan u sameeyey mataqaanaa si aadan labadiina isku helin marnaba aadan is helin sida aaraba ma dhicin way baxsatay kadib maxaan sameeyey mataqaanaa booliska ireland ayaa wacay si ay gacanta idinkugu dhigaan laakiin waad ka baxsateen raggu waxaan rabay inaan ku dareensiiyo qofka aad jeceshahay marka uu kaa fogaado xanuunka iyo dhibaatada uu leeyahay maxaa yeele anigu waa ogaa inaad meeshaan imaanayso si aad u badbaadayso qofta aad jeceshahay laakiin aniga waxaan sameeyey mataqaanaa burcadda dublin ugu waaweyn ayaan ku soo adeegsaday si aad u dareento weliba adiga oo tagan qofta aad jeceshahay oo dhibaataysan adigana aadan waxba u qaban karin hagaag qoftaas hadda adiga ma badbaadin kartid qofka keliya u badbaadin kara yaa waa mataqaanaa waa aniga intaan soo dhawaysto laabta geliyo aan weliba waxaan matalaynaa jacaylka adduunka adiga waxba uma qaban kartid kadib waxaan dhahaa mataqaanaa qaali qalbi qurxey aniga adiga la'aanta ma noolaan karo dunida adiga ayaan kugu jeclahay adiga laakiin maxaad u qaban kartaa ii sheeg maxaad samaynaysaa heydar igu lifo idil igu lifo maya ima dili kartid haddii aad dishana adiga ma helaysid caddayntii aad ku badbaadin lahayd taaraa sidaasna waxaad ku weynaysaa jacaylkaagii ha jacaylkaaga ayaad weynaysaa raggu mala socota adiga hooyaday marmar qaar waxay dhihi jirtay adiga waad waalan tahay laakiin aniga si zaa'id uma waalni waayo maanta heer waxaan ku gaarsiiyey anigoo ku hortaagan inaadan idili karin aniga waxba igama qaadi kartid aniga haddii sidaas ay tahay waxaan ciyaarinaa ciyaarta waalida okay diyaar ma tahay bistooladan aad u jeeto waa liiqaad 5 god way bannaan yihiin hal xabad oo keliya ku jirto cidda ku dhacdana oo ku geeriyoto way guuldareysatay ma fahantay sheekadan waxaan ka bartay filim uu waday anil kaboor waan xiiseenahay hadda sidaan filayo diyaar waad tahay sooma waad waalantahay sooma balse waxaad ogaataa aniga inaan kaa sii waalannahay hee qosolna qosole ma qosolka kaa dhammaaday aabbaaga markiis hore wuxuu ahaa qof xun oo ciyaal suuq ah
anigana sideen u dila mataqaanaa sida eeyoo kale balse adiga sideen ku dila mataqaanaa sidaasi si ka daran maxaa yeer qalad weyn aad gashay sugbal looma baahnin arrimaha taara inaad soo faragashato waad ku qaldaneed sugbal teeda kale makaaga baahna caddeemo taara aan ku badbaadiyo maxaa yeele ciyaarta waa dhammaad raggu maadaama aad garab siisay waad ku mahadsan tahay adiga sheekadan waa sheeko aad u dheer ha ilaawan wiilka inuu anaga naga mid yahay hadalkaada yaa diidi kara mudan adi waa in wax loo qabtaa okay akacabsan teeda kale eli muu sheegta arrintan inay garab nagu siiso garab bay ku siinaysaa adiga taas ka jiifo hawshaa ninkii garab ku siiyey rubii saaxiibkiis miyaana aniga waxaan u sheegay wuxuusa hadalkayga isaga uusan ku diidi karin waan ku faraxsanay aniga maadaama xorriyaddooda ay dib ugu soo noqotay laakiin hindii sidee ku aadi karaan ayaga marka hore hawshaas aniga garab ku siiyey marka labaadne adiga ayaa ku siiyey inta kaloo dhimanna isagaa dhammaysanaya qadada intaan la gaarin ka hor mar labaad inaad guursatid ma laga yaaba adiga ani markaa diidi kara macaan जब भी कभी फलक पे नजर जो गई तो सोचा मैंने हर पल यही तू है खुदाया मुसलसल यही चले हैं अरमानों में भी गुफ्तगू तूने जो की दिल को रुलाया सजदों में जब भी तेरा ही नाम लेके ये सर झुकाया तेरे ही अश्कों में मैंने है क्यों अपना ही अक्स पाया दिल अकेला है बड़ा क्यों रहूं मैं तन्हा ये इल्तिजा है तुझसे मेरी अधूरी जिंदगी है तू कर दे मुकम्मल अधूरी जिंदगी है तू कर दे मुकम्मल क्या लव स्टोरी है मौत तो बनती तेरी याद मेरे दिमाग में ऐसे है बसी ना ही बहते हैं आंसू ना ही आती है हंसी क्यों तो गई और कहां पे गई ये सब मुझको नहीं पता मुझको तो बस कोई यही बता दे कि मेरी क्या दिखता से चढ़ के बोले मैं क्या करूं एक छोटा सा
सवाल है मैं जीऊं या मरूं तना कटेगा कैसे ये सफर मुझ में जिंदा तू है इस कदर जिस एहसास को लफ्जों में कहना है मुमकिन नहीं है अब मेरा आशिकी तुझसे यूं ही नहीं है कोई न कोई बेवजह तेरी याद है हर जगह तेरी याद मेरे दिमाग में ऐसे है बसी ना ही बहते हैं आंसू ना ही आती है हंसी क्यों तो गई और कहां पे गई ये सब मुझको नहीं पता मुझको तो बस कोई यही बता दे के मेरी क्या थी खतरा कतरा कतरा टूट रहा हूँ इश्क में तेरे डूब रहा हूँ बिखरे दिन है बेपरवाह रातें कशिश कुछ ये है